barnaamijka ogaalka dunida. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك اضرعي يا نفس मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री बिहार प्रवासी संघ के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बम्बई में बहुत दिन से रह रहा हूँ। आज वो हाशमी आजमी साहब भी हम लोगों के पहचानते हैं, कई बार मुलाकात करते हैं। आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आने के सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए सभी भाइयों को मेरा तरफ से नमस्कार। शुक्रिया। मैं एक चीज़ बहुत उत्सुकता बस मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू फिलॉसफी के अंदर में वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी मेरा कुटुंब है, परिवार है, ऐसा हिंदू फिलॉसफी में कहा है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब सुखी हो, सब आनंदित रहे और सब अपने रोजी रोटी कमाते हुए खूब आनंद से रहे, यह संदेश हमारे हिंदू फिलॉसफी में दिया है। मेरे ख्याल से आपके फिलॉसफी में भी, आपके दर्शन शास्त्र में भी इसी तरह के संदेश होगा और इस संदेश को आप लोगों ने समय समय से प्रचार भी किया है। लेकिन एक आश्चर्य के साथ में और उत्सुकता बस मैं आपको इंगित करके कहना चाहता हूं कि या तो आप लोगों ने कुरान के सही माने को सही तरीका से विश्व लेवल में रखे नहीं, या कुरान के संदेश को यदि आप रखे तो समझने वाला कितना समझा। दूसरी बात यह है कि आज पूरे विश्व के अंदर में जितनी प्रतिष्ठा की नज़र से कुरान और इस्लाम को जो पहले देखा जाता था, कुछ वर्षों से उसमें कमी आई है। जैसे कट्टरपंथी, चरमपंथी, आतंकवाद, और कहीं ना कहीं तो मैं क्या समझूं, या आपके प्रस्ताव रखने में गलती हुई है, या कुरान के सही संदेश पहुंचाया नहीं गया, या हम इस संदेश में पड़े हुए हैं कि जो इतना बड़ा कुरान जो भाईचारा के संदेश फैला रहा है, चारों तरफ शांति का पैगाम देना चाहता है, वह आज विश्व लेवल में और उसकी छवि क्या है। धन्यवाद। walaalka su'aal wanaagsan buu na weydiiyey. Wuxuu ku hadlayaa falsafada Hinduuga. Waxaan rumaysanahay in caalamkoo idil laga soo qaadayo hal qoys oo kaliya. qof kastoo qoyskaas ka tirsanna waxa waajiba inuu farxad ku noolaado, maal inuu shaqaysto, farxad inuu ku noolaado, nolosha inuu ku raaxaysto. arrinkaasi islaamku ma shabaha. wuxuuna leeyahay isagoo adkeynaya haa waa uu eg yahay. markaaba uu iimaanayaa su'aasha xigta. wuxuuna leeyahay quraankan waxaa waajiba inuu la xiriiro dhammaan caalamka. ma waxaa jira qalad dhanka qofka muslimka ee quraanka akhrinaya, mise waxaa jira qalad ay dadku quraanka ka fahmeen? maxaa yeelay maanta waxaan helaynaa in muslimiinta lagu magacaabayo argagixiso, asal raac, xag jir. haddaba waa maxay qaladka dhabta ah? marka loo fiirsho su'aashaada koobaad, waan kugu waafaqsanahay in Hinduugu leedahay caalamku dhammaantii waa hal qoys oo kaliya. waxaa waajib in farxad ku noolaadaan, shaqaystaan, raaxaystaan. islaamku arrin u eg buu sheegay, laakiin meesha ugu dambeeyay ayuu soo reebay. alle wuxuu ku leeyahay suuratul xujuraat, suurada 49 aayada 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. dadoo waxaan idinka abuuray lab iyo dhadig, waxaana idinka yeelay shucuub iyo qabiilooyin si aad isku aqoonsataan. ruuxaas ugu sharaf badan eebba agtiisa waa kan idinku dhowrsasho badan, eebbana wax walba waa uu og yahay. haddaba quraanku wuxuu leeyahay dhammaan basharka waxay wadaagaan laba awoowe, aadam iyo xawaa.
nabadgelyo dushooda allaha yeelay allahna wuxuu noo qeybiyey shucuub iyo qabiilooyin midabyo kala duwan leh luqado kala duwan leh si aan qaarka kale isku aqoonsano marka alla loo fiirsho wadada uu wax ku xukumayo ma ahan maalka ma ahan kalarka ma ahan jinsiga balse waa alla ka cabsiga allah isla aayada wuxuu ku leeyahay waa suuratul xujuraat suurada 49 aayada 13 alle wuxuu leeyahay kan idinku karaamada badan alle agtiisa waa kan idinku dhowrsashada badan hinduuga waxa waajib inaan nolol farxad leh ku noolaato laakiin waa iska daysane xuduud ma leh laakiin islaamka waxa waajib inaan noolaato adoo faraxsan laakiin waa inaad ku noolaato alla ka cabsi shayga kaliya ee ka yeelaya inaad noqoto qof sareeya waa alla ka cabsiga attaqwa waa wanaaga damiirka nool ma ahan maal ma ahan khayraad ma ahan jinsi hadda waxaan u nimaanaynaa su'aasha labaad quraanku waa kitaab wanaagsan dibku maxariirka quraanka la sameynayaan baa dadku marka loo fiirsho tacaaliimta quraanka mise anagaan awoodin inaan fahano taasi waa sababta keenaysa inaan hadda dhigno wada hadalkan islaamku waa xalka bini'aadamka mushkiladu waa warbaahinta oo islaamka qaab kale u fasiraya anaga hadaan nahay muslimiin waa tan qaladkeena aniga waan kugu waafaqsanahay anagu warbaahinta kama faa'iideysano canaantaasi way nagu dhacaysaa hadaan nahay muslimiin waxaa waajib ku ah muslim kasta inuu faafiyo fariinta islaamka inuu ku faafiyo oo gaarsiiyo fariinta quraanka dhammaan bini'aadamka anaga waajibkeena ugumaanan istaagin qaab dhamaystiran waan isku dayeynaa wixii aan awoodna isku dayeynaa maanta waxa ugu wanaagsan waa inaan fariinta gudbino hadda fiiri kulankan weyn fiiri runtii waa 100,000 ma garanayo tirada yihiin balse anaga marka naloo fiirsho waa qayb yar 100,000 marka aniga la fiirsho waa wax aad anaga waxaan ka hadlaynaa malaayiin sidaa darteed kulankan ayaan ka baahinaynaa TV-geena waxayna gaarayaan tirada TV-ga daawata 60 milyan oo daawadayaal 60 milyan 100,000 ama 200,000 waxaan ka soo qaadanaa sida digirta Suudaaniga oo kale waa tiri aad waxay suurtagal ah inaan shahaadada Allah subhanahu wa ta'ala u gudbiyo inay risaalada gaarsiiyeen bini'aadamka oo idin 60 milyan waxay u dhigantaa 1% iyadoo laga soo qaaday inay waxba ahaynba 1% oo bini'aadamka kamid ah kana socda 6 bilyan waxay u istaagan dacwada muslimiinta waxa waajib ku ah inay warbaahinta ku hormaraan waxa waajib in la helo kanaalo waaweyn oo badan waxa waajib in islaamku u faafino si weyn aniga waan kugu waafaqsanahay inay jiraan mushkilooyin xagga fahanka ah waana taas sababta sida aad sheegtaba anaga in lagu magacaabayo argagixiso asal raac xaq jir hadalkaygan kana waa saxida fahmiyada waana qaabkan u radin lahayn marka qof nagu leeyahay waxa tihiin asal raac ama argagixiso ama xaq jir waxaan rajaynayaa tarjumaada inaad hesho markii muxaadaradan dhamaato kadib waxaan rajaynayaa inaan su'aashaada ka jawaabay